wasiirada wasaaradaha madaxtooyada Soomaaliland iyo dibadejinta wadajir u dhagax dhigeen cusbitaal cusub oo laga hirgelin doono degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Cusbitaalkani oo ka agdhow cusbitaalkii hore degmadaasi Ceelaf Weyn waxaana goobta lagu dhagax dhigay cusbitaalkani weyn ka soo qayb galay maamulka heer degmo iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay xildhibaan Ruush Caraale iyo waliba mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan iyo waliba Faarax Cilmi Cali oo ah qurbo joogta ka soo jeeda deegaankaasi Suldaan Saleebaan Cawil Dareer ayaa dhamaantoodba halkaasi ka hadlay waxayna ku dheeraadeen faa'iidada uu leeyahay cusbitaalkani degmada Ceelaf Weyn isla markaasina waxay sheegeen inuu ku soo beegmay xilli ay u baahnayeen bulshada degmada Ceelaf Weyn baahiyo caafimaad. waxaan loo dhagax dhigayaa isbitaal weyn oo deegaanka degmada Ceelaf Weyn iyo degmooyin kale ku xeeran ee gobolka Sanaag iyo cidi kasta ee caafimaadka danaynaysaaba ay danaynaysaa halkan loo ka dhisay isbitaalka weyn oo nolol dhagax dhigi doono. aad baan runtii farxad ay noogu tahay maanta inaad loo dhagax dhigtaan dhakhtarka. waxaan leeyahay dadweynuhuna wax badan baa dhibaato soo martay degmada sidoo ka warqabno roobkii baa ku yar awlku laba dhinac buu leeyahay ninka xumaantiisa raba dhinaca feerow ka tusa ninka wanaagiisa rabaana dhinaca hilibka ka tusa waxa laga yaabaa iyadoo wanaaga badan la qabtay in goordhow dhangaagaala yiraahdo oo masaajidkii Ilaahay lagu tukanay meeshii aan ku tukanay ciidkana halkeena miyaa loo soo dhigtay ciidkana idinka ku tukan jiray reer Ceelaf Weyn dhakhtarkana idinka yeelayeen dhakhtarka weyn ee la idin soo helayna maanta meesha ugu dhow ee laga dhisi karaa ee munaasib ku noqotay waxay noqotay goobtan oo awal bay idinku aalahaydeen isla markaa labadii ciidood ee ku tukan jirteenna iyadana dayici maynay waa taa garoonka weyn hadeer loo waxaynayo loo waageeraya garoonkan ka weyn runtii waa maalin aad u qiimo badan. isbitaalkan meelaha laga dhisay ee standardka ee laga dhisay waan arkay. Ceelaf Weyn waxay u baahan tahay horumar waa degmo aad u ballaaran runtii wax weyn oo tahay wax weyn bay inoo tahay inaanu isbitaalkan noqon kii sanad weeytan loogu ballan qaaday halkan laga cabiray buurta bisheeda insha Allah garoon ciideed baa loo soo dhigtay looma soo dhigana waxba laga qabanaya waxa weeyaan dhulkii baynu ka boobnay dee cusbitaalku lahaa baa la booba kadib markii la boobayna cusbitaal caalamiya meel uu ka dhismo waa la waayay annagana loo yimo waxa la war kolba waa isku mide waa laba dheefoode dheeftan uga kaca oo meel kale ha leedin ku bedelo waanu qaadanno waxba kama qaadan baahida dhakhtarka loo qabo dhakhtar yar baa halkaan ugu dhisan oo ay qurbo joogta soo dhiseen markiisii hore oo anigu aan raggii lacagta soo ururiyay baan lacagtii lagu dhisay halkaas Suudan baan ka soo ururinay. gabagabadiina waxaa si wada jir halkaas ugu hadlay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada Soomaaliland iyo dibadejinta Maxamuud Xaashi Cabdi iyo waliba Cali Saciid Reegel waxayna ka warbixiyeen Ceelaf Weyn waxay ka mid tahay eeriyada deeg ay ka fog yahay caafimaadku ka fog yahay ee waliba wadadeeduna ay xumayd ee maalin walba xataa gabadhu iyadoo Florence markay dhali weyday ee ilmihii ka laga dhalin kar waayo inta laga hal qaado oo lagu soo qalo ay jidka ku soo dhiman jirtay oo wax aad iyo aad loogu farxo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad oo dhan iska leh. kadib maanta waxaynu halkan dhagax dhignay isbitaal weyn oo casri ah oo loo dhisayo degmada Ceelaf Weyn. cusbitaalkan waxaa baahida jirta markii uu arkay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu ka codsaday hay'adda dalka Imaaraadka Carabta wuxuu ka codsaday in cusbitaalkan ay u dhisaan magaalada Ceelaf Weyn. cusbitaalkan waxaa lacagta ku baxaysa oo lacag badan bixin doona hay'adda la yiraahdo mu'assasatu Maxamed bin Rashid waa hay'ad samafala oo uu leeyahay sheekha xaakimka Dubai boqorka Dubai xukuma hay'adiisa samafalka waa hay'adda magaciisa uu ku ismeeyay isagu waxa uga wakiil ah oo loo igmaday hay'adda wadaniga samafalka ee Samson Foundation. cusbitaalkan wuxuu dabooli doonaa wax weyn ma aha mid dhagaxiisa loo dhigayo 40 cisho ka hor electionka oo dadka aanu ku indhasar caadinayno ma dhigno dhagxaanaanu dadka ku indhasar caadino meel kastoonu dhagax dhigno waanu dhisnaa. Axmed Maxamed Cilmi on Cable TV Ceelaf Weyn.